kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada daawan doontaana waxa ugu waaweyn caalamka oo qorsheynaya go'aan weyn xilligan ka gaaraya arinta hawada Somaliland maxay tahay isqabqabsiga gaaray heerkii ugu sareeyay ee go'aanka ay ka gaarayaan hadda xogaha ugu dambeeya macluumaadkii ugu xooganaa ee hadda taagan dhacdooyinka waaweyn ee arrinkan la xiriiray sidoo kale waxa daawan doontaan xogihii ugu dambeeyay ee la xiriiray talaabooyinkan la qaaday sida gaarka u quseeyay Somaliland warka farxadda leh ee cirra uu helay iyo go'aanka caalamka ama qaramada midoobay ku dhawaaqi doonaan ayaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa xogihiisii ugu dambeeyay balse si aan marka hore faafahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa muuqaalka inaad noo share gareyso like saarto meel fog gaarsiin qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbinaa adigoo rukumanaya barteena Race TV furagan balka digniinta si wararkeena ay ku soo garaan sidoo kale qaybta hoose aragtida ama commentiga faaladaada inoogu reeb waxaan ku bilowno wadamada waaweyn ee caalamka ayaa shirar kale arrimaha ugu dambeeya go'aanka laga gaarayo kiiska weyn ee la xiriira arinta Somaliland iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee arrinkan sida gaarka ah u la xiriiray waxa talaabooyinkii ugu waaweynaa ee taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyay ay abuureen xaalado kala duwan hubanti la'aan dhanka hawada la xiriirta cabsi laga qabo dhibaatooyin ka dhasha arrinkaasi iyo waliba dhacdooyin waaweyn oo talaabadaasi la xiriirta balse waxa hadda soo taraya dhaqdhaqaaqyada socda iyo go'aanada kama dambaysta ah ee la gaarayo ee arrinkan la xiriirta caalamka ayaana la filayaa inay si toos isugu raacaan talaabooyinkii ugu waaweynaa ama ugu dambeeyay sidoo kalena ah kuwa culus oo laga gaarayo go'aanka kama dambaysta ah ee arrinkan la xiriira waxa sidoo kale talaabooyinkan la qaadayo ay muujinayaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo talaabooyinkii ugu xooganaa ee soo tarayay talaabada dhaqdhaqaaqa xoogan abuurtay iyo xaaladda hubanti la'aanta keentay iyada oo lagu dhawaaqay talaabadan dhacdooyinkii ugu waaweynaa dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa iyo qorshaha la xiriira talaabada kama dambaysta ah ee lagu dhawaaqayo iyada oo la qorsheeyay in si adag loo qaado talaabooyinkan caalamku waxa ay doonayaan markan inay ka hortagaan qorshayaasha waaweyn ee la isku hayo iyo dhacdooyinka abuuray xaaladaha xasilooni darrada ah ee taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyay iyada oo la qaaday talaabadaasi haddana waxa soo taraya dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo talaabooyinkii ugu cuslaa ee maalmihii ugu dambeeyay taagnaa iyada oo ay sidoo kale hadda ku dhawaaqeen dhacdadan dhinacyada kala duwan ee saameynta ay ku yeelanayso caalamka ay ka mid yihiin hay-adaha u qaabilsan dhanka hawada maamulkeeda iyo waliba la socodka hawada ayaa ku dhawaaqay go'aanka ugu dambeeya ee arrinkan la xiriira iyaga oo banaanka keenay xogaha talaabooyinkan quseeya dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo go'aanka rasmiga ah ee laga gaaraya hadda waxa sidoo kale soo taraya warar kala duwan iyo dhacdooyin kale oo waaweyn oo la xiriira qorshihii ugu weynaa ama ugu cuslaa ee lagu dhawaaqay tan iyo markii dhacdooyinkan ay xoogeysteen talaabooyinkuna ay isku soo tarayeen muddooyinkii ugu dambeeyay si gaar ah hadda waxa soo taraya talaabooyinka culus ee la qaadayo qorshaha degdega ah ee jawaabta markaasi looga bixinayo caalamkuna ay hadda ku dhawaaqayaan si ay u hirgeliyaan qorshahooda ugu dambeeya haddana waxaa muuqata in la dardargeliyay talaabadaasi oo noqonaysa talaabadii ugu weyneed ama ugu cusleed ee lagu dhawaaqo waxa soo taraya sidoo kale go'aanadii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee la xiriira arrimahan iyada oo la qaaday qorsheynta ugu dambaysa iyo talaabada go'aanka rasmiga ah looga gaarayo dhacdadan taagan qorshaha ugu dambeeya sidoo kale waxa soo taraya wararka la xiriira go'aanka ugu dambeeya ee la gaarayo ee arrinkan quseeya ama markaasi ku saabsan caalamku waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku dhawaaqayeen go'aano kala duwan waxaana tani ay qayb ka tahay talaabooyinka rasmiga ah ee hadda la gaarayo ee uu markaasi tilmaamaysa dhinacyadan kala duwan talaabadan iyo waliba dhaqdhaqaaqyadan sii xoojisay
fashil xoogan ayay hadda wajahayaan dhanka hawada dagaalkii ka taagnaa waxaana dhinacyadu ay markaasi qaadeen tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee arrinkan la xiriiray iyada oo ay qaramada midoobay ku dhawaaqeen go-aanka kama dambaysta ah ee arrintan la xiriirta wadamada waaweyn ee caalamka ayaana qorsheynaya in ay go-aan rasmiya gaaraan oo ay markaasi tallaabo qaadaan taasi oo ka dhigan tallaabo qaadistaasi inay abuuri doonto xaalad markaa Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya ku abuuri doonto culays kale oo hor leh iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo lixaadsanaya marka la eego sida ay wax u socdaana waxa ay taasi ka sii dhigi doontaa culaysaadka jira marka laga tago inay abuureyso dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee hadda taagan iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa si gaar ah dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay waxaa tallaabooyinka la qaaday ay keeneen dhaqdhaqaaqyo xoogeystay iyo tallaabooyin go-aan gaar lahaa taasi oo lagu muujiyay inay ahaayeen dhacdadii ugu weyneed ee xogta arrintan la xiriirta kadib markii dalalka waaweyn ee caalamku ay gaareen go-aanka ugu dambeeya ee la xiriira masiirka arrinkan iyagoo qarka u saaran in ay si toos ah markaasi ula saftaan Somaliland oo la rumaysan yahay inay u qaadi doonaan tallaabooyinkan hadda socda marka la eego oo la sii tixraaco go-aanada ugu dambeeya iyada oo si gaar loo qaadi doono qorshaha kama dambaysta ah ee arrinkan la xiriirta iyo tallaabooyinka go-aanka rasmiga ah loogu gaarayo iyada oo la qaaday qorshihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa iyo waliba go-aanka ugu dambeeya ee rasmiga ah ee tallaabadan looga dhawaaqayo xilligan go-aanka guudna lagu gaarayo si loo dardargeliyo qorshahan waxay abuuri doontaa tani xasilooni iyo waliba dhaqdhaqaaqyo kale oo ka duwanaan doona waxa hadda taagan marka la eego culaysaadkana waxa ay noqon doonaan kuwa meesha ka saara dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee go-aanadan gaaraya si gaar ah waxaa hadda loo soo warinayaa in la qaadi doono tallaabooyinkii ugu waaweynaa iyo dhacdooyinkii ugu xooganaa ee la xiriira arrimahan hadda taagan sidoo kalena keenaya in culaysaad ka jira iyo dhaqdhaqaaqyada hadda taaganba ay dhammaantoodba meesha ka saari doonaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay tallaabooyinkii ugu waaweynaa iyo waliba sidoo kale go-aanka rasmiga ah ee hadda la gaarayo oo u muuqda inuu yahay kii ugu weynaa ama ugu cuslaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay go-aan rasmiya ay dhinacyadu ku gaareen kadib markii la ogaaday in markaasi caalamku intiisa badan hadda uu isku raacayo inay gaaraan go-aan rasmiya oo la xiriira arrinkaasi si gaarana markaa u quseeya go-aanada degdega ah iyo go-aanada rasmiga ah ee markaasi la gaarayo iyada oo ay muuqanayso xilligan in la qaadi doono go-aankii ugu dambeeyay ee la xiriira tallaabooyinkii ugu xooganaa ee si gaar ah markaasi ula xiriira dhaqdhaqaaqyadan kala duwan ee sida degdega ah markaasi loo qaadayo iyada oo waliba ay si degdeg u qaadayaan dhinacyadani tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhacdadan la xiriirta waxa markaasi hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan in ay qaramada midoobay ku dhawaaqi doonaan dhacdadan marka laga tago tallaabada kama dambaysta ah ee la xiriirta dhacdooyinka waaweyn sida gaarka ah markaasi u quseysa ee la xiriira waliba muddooyinkii ugu dambeeyay tallaabadani dhaqdhaqaaqyadan sidoo kale tallaabada xoogan abuurtay ama u muuqanaysa in ay ka dhigan tahay xaaladdu mid sii xoojinaysa tallaabooyinkii ugu dambeeyay dhacdooyinkii ugu xooganaa iyo waliba qorshihii ugu weynaa oo ay ka gaarayaan go-aan rasmiya oo la xiriirta arrinkaasi ayaa haddana waxay keenaysaa in la abuuro xaalado kala duwan oo keenaya in meesha laga saaro dhaqdhaqaaqyadaasi iyo tallaabooyinka sida gaarka ula xiriira dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyay ee abuuray xaaladaha kala duwan dhaqdhaqaaqyada sida weyn markaas isku soo tarayay iyo waliba go-aanka rasmiga ah ee laga gaara arrinkan oo u muuqanaya inuu yahay kii ugu cuslaa ee dhawaanahan lagu dhawaaqo oo si rasmiya loogaga gaaro go-aankaasi oo ay hadda ku dhawaaqayaan dhinacyadan kala duwan sidoo kalena u muuqanaysa in qaramada midoobay ay si gaar ah wadamada waaweyn ee caalamkuba ay u gaarayaan iyaga oo meesha ka saari doona dhammaan waxyaabaha la isku qabsanayo ee la xiriira arrimaha taagan xiisadihii ugu dambeeyay culaysaadka jira iyo dhaqdhaqaaqa dhacdooyinka waaweyn
ee la hadal hayo mudooyinkii ugu dambeeyayna abuurmay ay yihiin kuwa meesha laga saari doono. sidoo kale qaramada midoobe ayaa horay waxay markaasi ugu sii dhawaanaysay inay si toos ah ula saftaan Somaliland oo la rumaysan yahay intani ay ka dhigi doonto mid ay si gaar ah markaasi culeysaadkan jira iyo xasilooni daradan taaganba meesha uga saarayso, iyadoo oo ay u muuqanayso tallaabadaasi tii ugu weyneed ee la xiriirta arrimahan hadda taagan, dhacdooyinka waaweyn ee dhaqdhaqaaqyadan abuuraya iyo xaaladihii ugu dambeeyay oo isoo tarayay si gooniyana markaasi u muuqday inay yihiin kuwo waaweyn oo culus miisaankoodana xambaarsan. waxaana taasi ay keentay in si degdega go'aano ay dhinacyadan qaarkood hadda u sii gaaraan. qaramada midoobe ayaana la filayaa sidoo kale in ay si toos ah ama ula safato Somaliland ama ay go'aan rasmi ah ka soo saarto dhanka hawada iyo aqoonsigii Somaliland oo cirka isku sii shareerayay. ogeysiis muhiim ah, cisbitaalka Samocare waxa uu bilaabay 6 bishii Julaay oo daaweyn iyo qaliimo ay fulinayaan khubaro u dhalatay dalka Suudaan, kuwaasi oo kala ah Dr. Osama Gasmal Said oo qabiir ku ah cudurrada haweenka iyo taranka IVF, iyo Dr. Maxamed Cabdilxamiid oo ku takhasusay qaliimada guud iyo bogsakarowga. la kulanka dhaqaatiirtu waa lacag la'aan, qiimaha qaliimada waxa la dhimay 50% waxa ayna socon doonaan muddo 45 cisho ah. ee horay u gaar Samocare oo ku yaala Kaasa Balbalaare ka soo horjeedka saldhigga Hodan. dhaqdhaqaaqyadan haddana waxaa bannaanka yimid xogaha iyo macluumaadka la xiriira tallaabooyinkan, iyadoo oo ay si gaar ah ay u muuqdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ee qaramada midoobe ay qaadayso. waxaa jiray codsiyo kala duwan oo qaramada midoobe loo gudbiyay, Somaliland ay gudbisay. codsiyadaasi waxaa ka mid ahaa in loo madax banaaneeyo maamulka hawada, in sidoo kale la weeciyo oo si gaar ah aanan markaasi dhaqaalaha ay caalamka ka helaan, iyo waliba tallaabooyinka kale ee la qaadayba intaba aan lagu xirin hal dhinac oo ay si toos iyagu ay u maamulan karaan wax kasta oo la xiriira madax banaanidooda. sidoo kale la soo dedejiyo aqoonsiga Somaliland waxay qayb ka ahayd qodobada ay ku duulayeen Somaliland oo ay ku adkaysteen in markaasi la rumeeyo oo la dhaqan geliyo. xubnaha wakiilada caalamka ah oo ay hore ula kulmeenna waxay markaasi kala hadleen arrimahaasi oo aad loo xoojiyay kadib dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo arrinkan la xiriira. sidoo kale waxaa soo taraya tallaabooyinkan culus iyo qorshayaashan degdega ah, waxaana ay markaasi tallaabadan u qaadeen si degdeg ah oo waliba culus dhinacyadan, iyaga oo ay qorshihii ugu weynaa ee la qaaday noqotay midani. waana mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa ee la qaaday tan iyo markii xogahan la helay, oo sidoo kale si degdeg ah loo qaaday tallaabadii ugu weyneed ee arrinkan la xiriira. waxaa jira waxyaabo badan oo ay niyajab u arkaan dhinacyadii filaya marka hore qaramada midoobe ama beesha caalamku inaysan Somaliland taageeri karin oo aysan garab istaagi doonin. waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkaasi oo ama tallaabooyinkaasi la qaadayba in ay dhinac ka mid ah dhinacyadan si gaar ah u qaadeen qorshahan degdega ah ee arrinkan looga jawaabayo. qaramada midoobe waxaa la rumaysnaa inaysan marka hore ogolaanaynin in ay si gaar ah Somaliland arrimaheeda ay u galaan, sidoo kale ay u bixiyaan go'aano hal dhinac u janjeerin kara, sidoo kalena arrinkaasi la xiriira ama sare loogu qaadayo kadib markii la kordhiyay qorshahaasi iyo tallaabooyinka waaweyn culus ee arrinkan la xiriira ama taagan. haddana waxaa soo taraya mar walba dhacdooyinka waaweyn ee la soo warinayo iyo dhaqdhaqaaqyada xoogan ee durbaba soo ifbaxay kadib markii la arkay dhaqdhaqaaqyadan inay gaareen heerkii ugu sarreeyay oo tallaabadani ay si guud u qaadeen. xogaha aynu helayno hadda waxa ay muujinayaan in Somaliland ay qaadayso tallaabo culus oo degdega, sidoo kale arrinkaasi lagu taageerayo. xaflado lagu taageeri doono Somaliland iyo waliba go'aanka qaramada midoobe ayaa la filayaa in Hargeysa lagu qabto, sida ilaa xog ogaalka ay noo xaqiijiyeen. halkaasina laga bilaabi doono munaasabada waaweyn oo fantasiya ah
oo loogu dabaaldegayo guusha taariikhiga ah ee qaramada midoobay markaasi Somaliland ay ka heshay iyo in lagu garab siinayo Somaliland sidii markaasi loo dardargelin lahaa dhacdooyinka waaweyn iyo tallaabooyinka la qaaday kadib markii si gaar ah ay ugu dhawaaqeen go'aankii ugu weynaa iyo dhacdadii ugu xooganeed ee arrinkan la xiriirta. waxaa la rumaysan yahay in qorshahan si degdeg loo qaaday waxaana Somaliland ay ku dhawaaqayeen muddooyinkii ugu dambeeyay tallaabooyinkan si ay hore ugu sii qaadaan arrinkan loo xoojiyo kadib markii dhaqdhaqaaqyadan ay gaareen heerkii ugu sareeyay ee la xiriira tallaabadan ama dhacdooyinkan. waxaa isu soo taraya warar kala duwan iyo xogo soo baxaya waxaana aad markaasi loo xoojiyay dhaqdhaqaaqyadan kadib markii la ogaaday in si degdeg ah loo qaaday mashruucii ugu weynaa iyo dhaqdhaqaaqii ugu cuslaa ee arrinkan la xiriira kadib tallaabooyin dhowr ah oo la qaaday iyo go'aano ay si gaar ah markaasi u gaareen qaar ka mid ah dhinacyadan si loo dardargeliyo qorshaha kama dambaysta ah ee arrinkan la xiriirta. waxaa hadda lagu dhawaaqay in qaramada midoobay ay ka fikirayaan ku dhawaaqista go'aankan iyo in ay banaanka keenaan oo macluumaadka ugu dambeeya ee ay ku taageereen dhinacan iyo Somaliland kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada xoogan ee arrinkaasi kadib dhowr tallaabo oo la qaaday iyo qaramada midoobay oo wakiiladeeda u jooga Somaliland ama Hargeysa lagu qanciyay in la gaaro go'aanka ugu dambeeya ee arrinkan la xiriira. waxaa soo tarayay tallaabooyinkan oo xooganaa iyo waliba dhaqdhaqaaqyada oo marba marka ka dambayso si dardar leh u soo baxayay iyadoo oo lagu dhawaaqay go'aankii ugu weynaa ama ugu cuslaa iyo qorshihii ugu weynaa sidoo kale oo ah mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee lagu dhawaaqay tan iyo markii la helay xogaha dheeraadka ah ee arrinkan la xiriira iyo dhaqdhaqaaqyada isu soo taray kadib dhowr maalin iyo dhowr dhacdo oo waaweyn oo la rumaysan yahay inay gaareen heerkii ugu sareeyay ee laga sugayay dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka culus ee lagu dhawaaqay oo ah mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ama ugu cuslaa oo ay sidoo kale hadda ku dhawaaqayaan dhinacyadu iyaga oo xooga saaray si ay u dardargeliyaan qorshahooda gaarka ah iyo tallaabooyinkoodan la xiriira arrinkan.